السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أقونصور أونلاين أكاديمي. waxaan idin soo gudbinayaa xalqadii u horeysay ee barnaamijka maxaad akhriday oo si joogto ah inooga bixi doona baraha kala duwan ee aan ku leenahay shabakada internetka. xalqadan maanta waxaan kaga hadli doonaa xifdinta iyo xusuusta maskaxda aadamaha. waan uga dan leenahay inay ardaydu uga faa'iideystaan inay weeleeyaan aqoonta iyo macluumaadka kala duwan ee ay bartaan. haddii aynu si toos ah u galno barnaamijkeena, maskaxda aadamuhu marka laga eegayo dhinaca xasuusta waxay u qaybsan tahay laba heer ama laba qaybood. qayb macluumaadka marka hore soo gaadho lagu kaydiyo oo loo garan og yahay short term memory. qaybtan warbixinta waxay kaydin kartaa amaba se ay hayn kartaa muddo u dhaxayn karta ilbiriqsiyo kooban ilaa maalmo dhowra. warbixinta qaybtan maskaxda ka mid ah ay kaydiso marka ay rogrogto si qoto dheer u fahamto ayaa loo gudbiyaa qaybta sida joogtada ah ama abadiga ah u haysa macluumaadka ee loo yaqaano long term memory-ga. waxa qaybtani gala ayaana ina anfaca oo waqti dheer aynu manaafacaadsan karna. markaasi waxa muhiim ah waxyaabaha aynu baranayno ama aqoonta aynu baranayno inay degto qaybtaasi maskaxda ka midka ah ee sida joogtada ah ama waqtiga dheer hayn karta macluumaadka. marka baruhu marka uu aqoon cusub dhigayo waxaa la gudboon in aanu si degdega ku dhaafin, siiyana ardayda waqti ay ku dhugan karaan oo loogu gudbin karo long term memory-ga. waxaana lagu taliyaa inuu baruhu markasta oo warbixin muhiim ah sheego inuu aamus yar ka dambaysiiyo si ay maskaxda ardaygu u helo ama si ay maskaxda ardaygu u hesho waqti ay warbixintii ku rogrogi karto, si macno u sameynaysana ay ugu kaydin karto, taasoo hadhow fududeyn karta inay warbixintaasi ama aqoontaasi ku kaydsanto long term memory-ga. ardaydana waxaa la gudboon si macluumaadkaasi ay bartaan ama aqoonta cusub ay heleen ay u kaydiyaan amaba maskaxdooda ay ugu raagto inay ku celceliyaan, waayo ku celcelisku waa dawada kaliya ee loo hayo in wax la ilaawo, ama ilowshiyaha waa dawada kaliya ee loo ogyahay ilaa hadda. ilowshiyuhuna wuxuu dhacaa xilliga ay maskaxdu u aragto warbixin inaan loo baahnayn ama aanay faa'iido lahayn. waqtigaasi ayay maskaxdu xilowdaa oo laga takhalusaa warbixinta ay u aragtay inaan loo baahnayn. marka almuhim si aynaan u ilaawin warbixintaas aynu u baahannahay waxa weeye inaynu ku celcelino. waxaa iyaduna aada iyo aada muhiim u ah ardaygu marka uu wax baranayo ama uu aqoon cusub baranayo inuu ku saleeyo ama uu aqoonta cusub uu baranayo uu la xidhiidhiyo khibrad ama aqoon hore oo uu lahaa, taasi oo ka saacidaysa hadhowto in si fudud ama si qaabaysan loogu kaydiyo maskaxdiisa oo hadhow fududeynaysa xasuusta iyo inuu hadhow ardaygu dib u rikool gareeyo. waxa maskaxdeenna ku cusub haddii aynu la xidhiidhino aqoon ama khibrad hore oo aynu lahayn, waxaa fududaanaysa hadhowto in si fudud loo xasuusto. taa beddelkeedana waxaa adkaanaysa in si dhib yar lagu ilaawo. marka waxa aynu dhab ahaan barannay ama aynu si fiican u fahamnay waa waxa aynu la xidhiidhino aqoon ama khibrad hore oo aynu lahayn. si aynu taasi u tusaaleyno waxaan idiin soo qaadanayaa sheekada kalluunka iyo tadpole-ka. tadpole-ku waa stage ka mid a ama waa heer ka mid a meerto nololeedka raha inta aanu usoo bixin weeye labada lugood ee dambe. labadan xayawaan aynu sheegnay waxay ku wada noolaayeen barked, halkaasi ayay ku wada dabaalan jireen, noloshoodana ku qaadan jireen. waqti ka mida waayaha ayuu rahi koray, waxaana usoo baxay lugihii dambe, waxaanu awooday inuu dabadda uga bixi karo biyihii uu ku noolaa. markii uu rahu dabadda u baxay ayuu wuxuu arkay caalamka ka baxsan biyaha. muddo ka bacdina waxa uu ku soo noqday saaxiibkiisii kalluunka si uu uga warramo ama uu ugu sheego walxaha la yaab kale uu ku soo arkay biyaha dabaddooda. rahi ayaa uga warramay inuu soo arkay shimbiro
iyo xayawaano kala duwan. halkaas markuu marayay ayuu kalluunku weydiiyey oo waa maxay shimbiruhu. Rahi ayaa ugu sharaxay shimbiruhu inay yihiin wax duulaha oo laba baal leh iyo laba adin. ma qiyaasi kartaa kalluunku waxa uu u fahmay inay shimbiruhu yihiin? kalluunkii waxa uu fahmay ama waxa uu sawirtay in ay shimbiruhu yihiin wax kalluunka u eeg oo leh laba lugood oo lamida kuwa raha. qaab maskaxeedka ama sawir maskaxeedka uu qaatay kalluunku aad ayuu ugu dhow yahay ka shimbiraha. waxaanaynu halkaa ka arkaynaa inuu kalluunku la xiriiriyay aqoontan cusub ee uu baranayay oo ah shimbirta, khibradii hore oo uu lahaa qaabka kalluunka iyo lugaha raha. marka mar walba waa muhiim si aynaan u ilaawin warbixinta amaba ay raad inoogu reebto looguna kaydiyo qaybta loo yaqaano long term memory-ga inaynu la xiriirino khibrad iyo aqoon hore oo aynu lahayn. barnaamijkeena intaasaynu kusoo koobaynaa. aad baa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.